بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا وعنو ونكسن غياري ميربو أجوكتان هالكن وبرتان كلنا يوتيوب كي نحرك ورقة قضبات برنامج كان ديكو قصو قد بدو إنه إسلام مركنا aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqonaya saraakiishii ugu badnayd oo ka mid ah ciidamada badbaado qaran la magac baxay ee kol hore diiday muddo kordhinta loo sameeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa haatan bilaabay dhaqdhaqaaq xoogan oo ay ku doonayaan in ay ku galaan golaha shacabka waxaa lagu wadaa in maalmaha fooda nagu sahaya lagu soo doortay magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle Colonel Sani Cabdulle Gaab oo kamid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee markaas sida aadka ah kaga soo horjeeday muddo kordhintii la sheegay in loo sameeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cali Guudlaawe Xuseen ayaa lagu waramayaa in markaasi uu dhankiisa bilaabay sidii uu soo saar lahaa waxaana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saaxiibadii juhdi xoogan ay gelinayaan sidii ay kaga hortagi lahaayeen tallaabo walba oo looga hortagi karayo ama lagu hagi karayo in Sani Cabdulle oo xildhibaan noqdo arintan ayaa ka dambeysay kadib markii xildhibaan loo soo doortay Ismaan Xaadoole oo kamid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa kale idin soo gudbin doonaa dilal kala duwan oo ka dhacay magaalada Muqdisho hadaba kuma ayuu ahaa nabadoon bedel jaamac xirsi laangare oo Muqdisho lagu dilay maxay tahay sababaha ugu waaweyn oo eersaday waxaan idin soo gudbin doonaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrinka war ka soo saaray maxay yihiin shuruudaha musharaxa u tartamaya xilka guddoonka golaha shacabka looga baahan yahay iyo kan aqalka sare falanqeyn ayaynu ku sameyn doonaa ee dawdal haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo kamid noqo saaxiibada nagu xiran hagaaga dhawaan doorasho ka dhacday magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa xildhibaan loogu doortay Colonel Ismaan Xaadoole oo kamid ahaa saraakiisha ciidamada badbaado qaran ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Ismaan Xaadoole ayaa si aad magaciisa u soo shacbaxay kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay go'aan ahaa in markaasi muddo kordhin 2 sano ah ay u sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka ciidamo uu hogaaminayo ayaa qabsaday qayb dhowr ah oo kamid ah magaalada Muqdisho iyaga oo diidanaa dhaqdhaqaaqa ama rabitaanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo talabadaas ayay ku tilmaameen mid aan suuragal ahayn waxayna taas dhalisay in ciidan xoogan ay magaalada Muqdisho soo galaan Ismaan Xaadoole ayaa markaasi waxa uu qabsaday baraha bulshada isaga oo horboodayay dagaalka lala galay ciidamada ka tirsan kuwa dowladda gaar ahaan ciidamada la magac baxay ama loogu yeero Gorgor Duufaan Haram Cad waran iyo kuwa kale oo markaasi ka tirsan ciidamada kala duwan ee dowladda gaar ahaan kuwa ay tababareen dowladda Turkiga ciidankaasi dagaalka ay la galeen kuwa badbaado qaran ayaa la sheegaa in ciidanka badbaado qaran oo ahaa kuwa military ah oo ka yimid ama ka soo baxay furmaha hore ee dagaalka ay ku gacan sareeyeen tanina waxay dhabo hor la u sii xaartay in markaasi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka tanaasulo go'aankii iyo damaciisii hore ee ahaa in markaasi uu yahay nin markaa hantiyay 2 sano oo hor leh arintaasna way iska diideen iyada oo taas ay jirto ayaa doorasho loo tartamay oo markaasi loolan culus uu la galay xildhibaan Xaadoole waxa uu kaga guuleystay musharaxiin uu kamid yahay nin si aad ay isugu dhow yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo lagu magacaabo Yuusuf Jaalle ayaa in muddo ah waxa uu saaxiib la ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhaqaale xoogan oo tartankaasi ku galayna waxa la sheegay in filla Soomaaliya ay bixinaysay waxaana doorashada halkaas ka dhacday oo lagu loolamay kursiga Hob 106 oo ay leedahay beesha Galmaax ee Waxburin Abgaal ku guuleysay Ismaan Xaadoole isaga oo helay codad gaaraya ilaa iyo 56 cod magaalada Muqdisho iyo qaybo badan oo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya waxaa ka dhacay fantastiyo loogu dabaaldegayay guusha Ismaan Xaadoole si aad ah ayaan loo soo dhaweeyay arintaas ayaa muujinaysay mid shacbiyad hor leh ku beerayso iyadoo ay taas jirto ayaa haatan warar hoose oo aynu helnay waxa ay sheegayaan in Colonel Sani Cabdulle Gaab oo qudhiisu kamid ah saraakiisha ciidamada militariga dowladda federaalka ee Soomaaliya si aad ahna u diidan siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu haatan qorsheynayo sidii ugu dhawaaqi lahaa in uu yahay musharax danaynayo kursi xildhibaan oo deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada Jowhar ee caasimada dowladda Hirshabelle
kursigan waxaa haatan ku fadhiyo wasiirkii hore ee wasaaradda amniga xukuumaddii xasan cali khayre maxamed abuukar islaw ducaale, kaas oo la og yahay inuu saaxiib dhowlo yahay xasan cali khayre. islaw ayaa kursigan ku fadhiyey muddo 8 sannadood ah isaga oo ka beec mushtara sida lagu eedeeyey, laakiin haatan kursigaasi waxau noqonayaa mid lagu ilaaliyo qadiyad guud oo ciidamada badbaado qaran ah. waxaa horey loo doortay xubno uu ka mid yahay saadiq cumar xasan saadiq john oo markaasi ahaa shaqsigii fashiliyey damicii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, isaga oo fariisin xoogan kolkaasi xasaradu ay jirtay ka dhigtay magaalada muqdisho, gaar ahaan halka loo yaqaan shiir kore ee degmooyinka hodan iyo howlwadaag. waxaana taas ay sababtay in uu helo garab iyo gaashaan ay u muujinayaan ciidamada. intaasi kadib waxaa sidoo kale uu noqday saadiq john shaqsi dhabaha u xaaray in la diidi karo damac waliba oo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo saaxiibadiis ay doonayeen ee ahaa in markaasi ay qaataan go-aan waliba iyagu ay danaynayeen. waxaa xildhibaan noqday oo ciidamada badbaado qaran horboodayay xubno uu ka mid yahay xildhibaan mahad maxamed salaad. xildhibaan mahad salaad waxa uu ahaa dhiirigeliyaha ugu weyn ciidamada badbaado qaran, isaga oo har iyo habeenba la garab joogay hiil hoo iyo haa ah, isaga oo markaasi geynayay geel furmaha hore ee dagaalka. waxaa xildhibaan aqalka sare ah loo doortay senator alxaaji muuse suudi yalaxow oo laga soo doortay deegaanada hirshabeelle, gaar ahaan magaalada jowhar ee caasimada maamulkaasi. guusha muuse suudi waxa ay dhaawac culus ku ahayd kuwa danaynaya xukunka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. cabdulaahi sheekh xasan oo si aada garab kaga helayay filla soomaaliya ayaa tartan xoogan waxa uu la galay senator muuse suudi yalaxow, balse waa laga guuleystay oo waa la awood sheegtay. xubno dhowr ah oo badbaado qaran ah ayaa kuraastooda hantiyey oo gacanta ku dhigay, halka nabad iyo nolol shakhsiyaad dhowr oo ay doonaysana ay weeyeen markaasi laga guuleystay. dhanka kale haddii aynu eegno, waxaa muqdisho lagu dilay nabadoon bedel jaamac langare. dabley hubeysan ayaa xalay maqribkii weerar ku qaaday oday caanka ah magaalada muqdisho. kooxdan oo ku hubeysna bastoolad ayaa xalay xaafad ka tirsan degmada kaxda ee gobolka banaadir waxay toogasho ku dileen awaan bedel oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka degmadaasi xilli uu masaajidka ka soo baxay salaadii maqrib. dableydii ka dambeysay dilka awaan bedel jaamac xirsi ayaa goobta ka baxsay, waxaana dilka abwaanka cambaareeyay mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin dadweyne oo tacsi u diray. muddo kadib waxaa goobta tegay ciidamo booliis ah oo halkaasi meydka ka qaaday, iyadoo baaritaanku uu bilowday. awaan bedel jaamac xirsi ayaa ka mid ahaa odayaasha iyo abwaanada sida weyn, waxa uu ka mid ahaa odayaasha sida aadka u taageersanaa siyaasadda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, isaga oo garab iyo gaashaanba u ahaa hanaanka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu wax waday. waxa uuna dhaliil xoogan u jeedinayay xubnaha kasoo horjeeda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee odayaasha dhaqanka beelaha hawiye. madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo waa uu ka tacsiyeeyey geerida ku timid nabadoon bedel jaamac langare, waxa uuna alle uga baryey in uu naxariistii janno ka waraabiyo, isagoo ugu baaqay hay-adaha amniga in gacanta lagu soo dhigo xubnihii ka dambeeyey ee dilka wadaadkaasi caanka ahaa. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo tacsi tiiraanya leh ayuu u diray qoyska, qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ka geeriyooday. allaha u naxariisteen nabadoon bedel jaamac xirsi oo dil xaq darro ah loogu geystay muqdisho. madaxweyne farmaajo ayaa xusay in marxuum bedel jaamac xirsi uu ahaa abwaan iyo nabadoon lagu yaqiin samadoonnimo, wadaniyad, daljeceyl, isagoo door lama ilaawana ka qaadan jiray wacyigelinta bulshada. allaha u naxariistee nabadoonka dilkiisa waxaa sidoo kale ka tacsiyeeyey oo ka hadlay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ka tacsiiyey geerida naxdinta leh ee ku timid allaha u naxariistee abwaan bedel jaamac xirsi langare oo goor sii horeysay oo xalitoole ah dhagarqabayaal ay ku beegsadeen xilli uu salaadii maqrib ka soo baxay masjid ku yaala degmada kaxda. madaxweynaha galmudug ayaa si guud uga tacsiyeeyey ummadda soomaaliyeed geerida ku timid nabadoonkaasi, isaga oo alle uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo, gaar ahaan qoyska iyo qaraabada xigtada marxuumka, wuxuuna eebbo uga baryay in naxariistiisii janno uu ka waraabiyo.
ugu dambeynna jadwalka guddoonka labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa la shaaciyay waxaana ay noqon doontaa doorashadan mid si aad isha loogu eegayo. Doorashada labada gudoomiye ayaa waxay tahay mid markaasi haatan isha loogu eegayo oo ay suuragal tahay in la soo afmeero waqtiga loogu talagalay. Daawada barnaamijkan waxa kaga imaanaya barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Nuxurka Wararka. Nabadgelyo.